soo dhawow daawade waxaan rabaa muuqaalkan kooban inaan oga hadlo farsamo aad iyo aad cajiib ah taasoo anfacayso ardayda dadka wax qoro dadka jecel inay wax aqriyaan. farsamada cajiibka magaceeda waxaa la yidhahdaa Pomodoro ama sidoo kale dadka waxay u yaqaanaan oo kale 5-5 waxaa ikhtiraacay ama keenay asalkeedii lahaa nin Talyaani ah oo lagu magacaabo Francesco Ciliro kaasoo ugu talagalay dadka wax saacado badan wax aqriyo inay ka faa'iidaystaan. farsamada waa farsamo cajiib ah waqtigaaga way ku koobi doontaa sidoo kale waxa ugu muhiimsan ay kaa caawin doonto waxaa ka mid ah in ay kaa ilaaliso inaad wixii nacdo ama ay ka caajiso. farsamada Pomodoro maxay tahay af Soomaali ahaan maxay noqoneen? horta ereyga Pomodoro waa erey Talyaani ah equivalent word in Somali language wuxuu noqonaa farsamada yaanyada Englishkana tomato technique ayaa lagu dhahaa. haddii aan u gudagalo farsamada ujeedadeedu waa inay kaa caawiso inaad si buuxda diiradda u saarto waxa aad qabanayso iyo inaad siiso most concentration waxa aad markaas fadhiso ama hadday noqoto qoraal ama hadday noqoto waxaad xifdinayso. sidaanayna u qaybsataa Pomodoro. horta marka koowaad waxaa lagaaga baahan yahay inaad taqaano waxa aad qabanaysid. tusaale waxaa rabtaa galabta inaad aqriso maadada biology-ga dhahno ama maadada chemistry. tusaalahan soo qaadanayna dhan kasta waa lagu fiiri karaa laakiin tusaalaha ugu soo fudud maadaama ardayda ay in badan caawin doonto waxaa soo qaadanaya saacad stopwatch waxaa saaranaya 25 daqiiqo waa meesha ay ka timid 25kaas daqiiqo waxaa aad xooga u saareeyay juhdigaaga iyo maskaxdaada iyo indhahaaga oo dhan iyo qalbigaaga oo dhan waxay isugu geynay waxa aad qabanayso. tusaale waxaa rabtaa inaad memoragarayso cell biology oo kale aan dhahno waxaa rabtaa marka cell nuucyadiisa qeexitaankiisa inaad practice-garayso 25kaas daqiiqo wax kale ma qabanaysid meel kale ma fiirinaysid waxaana isku daydaa marka aad akhrinayso inaad kor u aqriso. tan waxay kaa caawinaya marka maskaxda laba shaqo inay u qabato shaqadaas oo ah dhawaqa aad maqlaysid iyo waxa gudaha ka soo baxaya. waxaa kuu soo hartay marka 25kii daqiiqo markaad dhamayso waxaa samaynaya 5 daqiiqo oo break nasiina ah sababtoo ah insaanka ama bini'aadanka ma jeclo wax saacad ama nus saac wax ka badan inuu hal maal iyo hal shaqo qabto. maskaxda refreshment soo siinaya meesha aad ku diyaarinaysid waa ka tegay banaanka kala tegay sheekha soo caawiyay 5 daqiiqo kaliya 5 daqiiqo markaas soo laabanay. intaas waxaa loo yaqaanaa marka 1 Pomodoro ama hal Pomodoro. hal Pomodoro maxaa waaye waa 25 oo xoog ah saarayso akhris bes iyo 5 daqiiqo oo nasiina. taas waxaa la yiraahdaa marka 1 Pomodoro. marka arrintaas samayso 4 wareeg oo sidaas oo kale 4 wareeg macnaheedu waxa waaye 25 waxaa ku jirto dabcan 20 daqiiqo oo nasiina ah ku jirto. afartaas wareeg markaas samayso waxaa qaadanaya nasiina dheer oo u dhaxayso 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayaa waxaa soo siinaya nasiino. waxaa la cadeeyay ama la ogaaday waxa sidaas oo kaleeto maskaxda hal mar la wada saaro oo hal 30 daqiiqo ay u fadhiso inaysan weligeed iloobeyn waxay rabaan ha ahaadaan. sidoo kale waxay u yaqaanaan deliberate practice. waa maxay ku celcelis talagal ah inta badan saacado badan ay qaataa. waxaa sameeyaan dadka guulaystay oo kaleeto farsamooyinka isticmaalaan waayo. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa marka maxaa loogu dhexshay farsamada yaanyada maxaa loogu dhexshay. ninka odaga ah Francesco Ciliro ayaa wuxuu lahaa saacad sida qaabka yaanyada u eg yacni shakliga waxay lahayd sida yaanyada oo kaleeta ah. marka wuxuu yidhi farsamadan waxaa u bixiyey farsamada Pomodoro ama farsamada yaanyada. waa mahadsantihiin insha allah muuqaalka waxaan noqon doonaa muuqaalkan kaga hadli doono sida loo sameeyo memorizing-ka. aad iyo aad ayaan salaamay waa mahadsantihiin.